بس marka aad eegto rumahaantii marka heesahaasi la qaadayo anigu sidaan isku lulaayay madaxaan ismaan ogeyn daawadayaashana sidoo kale malaynayo labadaydan bay arinahayd inaan qaadno laakiin isilowshaha ayaan sida dadka odhan doona war afka alla qabay muxuu nooga joogtay waan se malaynayaa inaad adiguna sidaa qalin cumar antii aan qaato waxa uu riwaayad ahaan u la dhigay riwaayadii ugu horreysay kooxdii la odhan jiray walaalaha hargeysa cabdillaahi qarshe ka mid buu ahaa xuseen faarax ka mid buu ahaa maxamed axmed ka mid buu ahaa ina magaalo ka mid buu ahaa aniga cumar oo matalayin gabadh marka aad arrintaasi haddaba qaadato cumar intaasi kuma uu joogsana waxa uu yimid magaalada jabuuti waxaanu ka dhigay riwaayadaasi walaalaha hargeysa oo tii ugu horreysay ahaa isaga oo gabadha sinimaha iminka loo yaqaan ama waqtigaaba la odhan jiray odiyo halkii fiimiska iyo cumar ma hormartay ما حسوسات عادي sida oo kale hadaba idaacada nafsigeeda ka shaqeyn jiray waa sidaas Umar ba ku riwaayadaasi dhigay way ka ababixeen dalka waxay tageen magaalada Cadan oo iyaduna ahayd meelaha funku sida walxaad kale uu uga soo qaadan jiray Umar muu ogeyn halkaasi waxba qabsan doona waa kal gacalkii ugu adkaaba Umar halka ka helay uma inta tagay inta dambe aan soo la taariikh ahaan Umar waxa uu qaadaa hees kale oo aad u wanaagsan aniga qudayda iyo inta ila deehinay jeceshahay dadkuna jecelay waxay tahay heestu horeba way u jirtay waa jawharduula laakiin sigu u tumay bal Umar sidaad u tuntay Barki yara hatado sidi hatta
وأركان الصوت زي